ugaaska waxaynu saaraynaa insha allahu marka ugaaska barakaysan allah ka dhigo ugaaska barakaysan allah ka dhigo insha allahu kii tolka hogaamiya allah ka dhigo raayida aw saciid oo ka tirsan beelweynta reer Awa Xasan ayaa maanta u caleema saaray Cali Xaaji Shakuul inuu noqdo ugaaska cusub ee beesha kadib munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo ka dhacday magaalada Mandheera. munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay suldaano, odayaasha dhaqanka, culimaawidiin, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kale kuwaasi oo dhammaantood muujiyay taageero iyo bogaadin ay u hayaan ugaaska cusub oo isna goobta ka hadlay ayaa carabka ku adkeeyay inuu ka shaqayn doono midnimada raayida iyo beeshaba asagoo sidoo kale ku dhawaaqay in dhawaan la qaban doono kulamo duco iyo is-afgarad lagu xoojinayo wadajirka bulshada. annaga bin xasan oo maanta intaan fadhiyo faataxada maran wallaahi oo billaahi oo tallaahi maanta waa dhaare waxaan ku toosman maanta farta iskaga taagno inay buuraha ta ku jawaayeen kuwii ilaahay dii waxadka ay aniga wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaan ka shaqaynaa 63 sano jira qaatulayda inta ka dambaysa bin xasan inuu kooyay kan dal joogo kan dibad joogo inaan الجربل وانا أبكي قال لك مقلين المهي قال فعل على بريني المها قرابة قال فعل على بريني أو لا بري دوره وحن كنت دارين إن الدين تتهي إن أي خاتم مدو ولا تتهي أي أهان دون وحن كشقيناي أو سلطان كل شقين دونه أو علماء كل شقين دونه أو أديان كل شقين دونه أو كذا كل شقين دونه ayaan horta inta ayada ahaan maanta tolkeyga oo wanaagsan oo aanan raadsan ay wax ila soo doonteen ay koontareen waan u mahad celinaa waxaan ugu mahad celinaa annagoo bin xasan oo magaalada iska joogno suldaanka naga ayaga gurigiisa ugu tageen inta soo bilowday ku soo noqonayeen war idaay war kaale waxaan u malaynaa culumada hadda iga culumada way joogtaa maanta ay waxa ugu fiican ninkay ummadda la soo baxday tiraa warniyow adiga amiir adin noo noqon ninkay tiraa ummadda nabi maxamed ninka tolkiisa intuu la soo baxay dadka dhex keenay koontareena waa mahadsan yihiin. geesti kale marti sharafta goobta ka hadashay ayaa ku baaqay in beesha ay sii xoojiyaan midnimadooda isla markaana ay garab istaag u muujiyaan ugaaska cusub oo maanta xafladan quruxda badan ka soo qayb gashay way mahadsan yihiin wax badana laga dhawaaji waxaan afka ka sheegnay inaan ficilkeeda la imaanaa wanaagsan waxaan sheegayna waa wanaag xumaan maaha wanaageeda inaan xoojino oo nin walba dhalinyarada gabdhaha wiilasha odayaasha dhammaan ay wada xoojiyaan yaan aad u rabnaa haddii ilaa yiraha waxaa nooga soo xiga fadhiyaal badan oo joogto noqon doono insha allahu haddii ilaa yiraha bisha hadda noo bilaabatay oo maanta taariikh 3 taariikh 4 mare ma aqaane waxaan rabnaa meeshii ku dhamaatay quraan weyn insha allahu oo qalaaliyo la tagnaa ee meeshaan la tagnaba kolkaasaan ka tashan doonaa inaan cilaamino oo sida u degdeg badan faataxada daamarna wax walba oo halaysan waynu hagaagayn waxaan maanta u joogno waa midnimo cidda wixii wanaagsan aan isla wadna wixii qaloocan aan soo qabanna waay waxaan leenahay inta naga maqana allah soo celiyo annaka abkay saacid haddaana nin baan soo baxsanay oo tolka raabay kala abkay xasan la wala shaqeeya oo suldaanka la shaqeeya ninkanaan u soo dhiibinay Cali Xaaji Shakuul tol jir allah idinka dhigo haddaad soo garateen oo salaan aad xirtaan oo wixii dhacayad hagaajisaan aad garateen waad ku mahadsantihiin aad iyo aad baan nagan idinku mahadinaynaa ilaahay baan ku mahadinaynaa idinkaan ku mahadinaynaa laakiin mid baan idin sheegi laba nin oo walaale hadduu nin banaankaa taagan yaho xaar gacmaha ku wato oo uu sayrahayo walba dhinac u tuurahayo ninna uu malab gacanta ku wato oo nin alla ninka uu arkaba uu wanaajinayo canaantii ceebti ma dhammaanayso weli waxay ku dhammaan kartaa ninkaa waxaa leynhayo in loo fadhiisto
oo liilaaseen yeellaa oo soo qabataan odayga aad la soo baxdeen oo tiraahdeen suldaanka ha la shaqeeyo suldaanka ha la shaqeeyo aad tiraahdeen ood magacaabdeen oodna hor keenteen saan ugu jeedna nin u qalma u yahay taasna waad ku mahadsantihiin tan kaloo labaad koona tireeb ayadana waa mahadsanta waayo suldaankii annagana aan duubnay ayagiina waa inoo duubeen hadan koona tireeb aan u celinaynaa haddana maanta ha ogaadaan suldaanka ina gaarhayihiisi uu calijiis uu yahay cali xashakuul oo ugaaskii yaraay oo la shaqaynay uu yahay oo reerow xasan uu mid u yahay ha ogaadaan ilaahay subxaana watacaala mahad iska leh ilaahigay ummadaha ugu qaym badan ilaahay naga dhigay subxaana watacaala ayaa mahad iska leh ummadda reerow xasan waa ummad aada u qaymo badan oo maaragtay ilaahay subxaana watacaala la doonaya dadka intay hogaamiyaan dadka intay hagaan diin iyo dhinaca kalaba wixii soo socdi hinduu ilaahay subxaana watacaala garasho nagu soo celiy dhammaanteen oon maaragtay arrinta aan u madownay waa khayr allah siiy cidda reer abtigay awalna hoggaanka idinkaa hayseen haddana hoggaankii haddana idinkaa haynaysaan weligiin hoggaanka idinkaa soo hayseen haddaad xumaadana idinka waa soo xumaynayseen haddana waa wanaajinayseen haddana intaad fadhiisataan hoggaankii maaragtaa soo wanaajiseen hoggaan rasmi oo la aqaano oo caan aad keenteen waa wax weyn alxamdulilah horta maanta aan ka farx badanahay ma laha waxa waa soo marnay laakiin alxamdulilah wixii kaleeto waa naga soo dhammaadeen maanta meesha aan joogo ilaahay saha noogu wada sidaas si ka fiican allah noogu wada midnimo khayr qabto oo sida maanta allah noogu dhigi midda kale horta suldaan waa kaa qaadnay saweynta aad ninku nugu soo xirtay waa kaa qaadnay saweynteeda waa kaa qaadnay idinka waa naga qaadnay waa ka qaadnay horta khayr laan sii midda kale middaa maanta waa dhammaatay oo mar dambe buuq iyo qashiga kama dhacay abkii xasda maanta kama dhacay mar dambe kama dhacay mar dambe middaa noogu dambeyn midii labaad suldaan maxaan kaa codsanaynaa cidda qalaafin waa soo galee haddaa ilee yidhaha mar dhow oo degdeg ah anaa horta qur-aan aan akhrisan qur-aan anaa akhrisan wixii muhiimka horta waa qur-aan oo saqiir iyo kibir aan ka maqneen anaa meel sugu imaan oo akhrisan aan jecelna anu horta haddaa sashafe ka dhigan iyo haddaan qaaliyo ka dhigno meesha oo isku afgaran horta waa rabnaa intaas hadalkeed waa fahantiin khayrna allah insa idinka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu reebow soo dhowaada sidii odayaasha iiga horreeyeen umaan la qabaa saan u nahay beesha binu saacid oo ka tirsan beesha reerow xasan waxaan la soo baxnay duqacalijiis inuu cidda ugaas u noqdo uu hogaamiyo horaan marka horeba anigaa suldaanka la shaqayn jiri haddana markaan fadhiisanay oon tashanay waxaan la soo baxnay aw cali xaashiquul inuu cidda hogaamiyo ugaas cid u noqdo anagana waan ku qabanahay waan la shaqaynaynaa suldaankan horaan oo ula shaqaynayn haddana waan la shaqayn doonaa insha allahu marka ugaas soo dhowow qofkii cidda isu keena mideeya reerow saacid mideeya reerow xasan mideeya allah kaa dhiga annagana waa garab taagannahay waana kula shaqaynaynaa habeenii maalin waa garab taagannahay insha allahu tacaala allah kula fududay waxaan leeyahay mid waxaan u leeyahay adeer cali soo dhow sab fiican aan kuu naqaanaa nin oo galgal badan aad tahay oo maasha allah oo firfircoon waa kula shaqaynaynaa adigii suldaanka waxaan idin leeyahay soomaali waxay tiri aan kala guurin maxayd waa iga guur waa godob aan isla guurin waa gar maxayd aan isla guurin waa gacal iyo walaalnimo marka waxaan rabnaa arrintan maanta meesha ka bilaawatay inaan derbiga soo taabanno aan ballamihii horaanta u soo qaadno camal ay noqon aan ka mira dhalno labada nin oo naga maqan walaalihinu way annaga lee ku filan labadaas nin aan ku soo qaban lehna nagama badno waa soo qaban karnaa middaas intaasaan ku leeyahay waxaa waaye maanta meeshan waa la iskugu imaaday fadhigaan maanta fadhi ka wanaagsan weli ma isoo marin alxamdulilaah fadhigaan waa fadhiga reewa xasan duqa cali dhahaayo
yaa maanta fadhiga ma aragta maanta ugaaskayna ahay ugaasnimadii maanta loo doortay maasha allah waa farxad maanta farxadaha noogu horeyso maxaa yeelay duqcali waxaan ogahay gunta koomtareeb iyo wixii oo walaal iyo ehel ahba inuu ma aragtaa wixii xafiisyaa xataa meel kasta haataa inuu usoo dhicinaa markaan insha allahu kariim kii isagana mas-uulid weynaa saaran mas-uulidda uu qaaday ilaahay subxaana wa tacaala garab qabta allaha ka dhigo salaamu calaykum waraxmatullaahi wixii madax oo meeshaan imaaday oo dhammaala wixii macallin oo meeshaan imaaday oo dhammaala salaamu calaykum waraxmatullaahi midda labaysa cali yaa beriga la calaamsana waa cali xaaji ilaahayga weynkiisa waaxidkiisi allaha barakee suldaanka kale allaha barakee reer waxaa sanoo midoobi oo cilmi iyo saacid oo midoobi allaha ka dhiga xafladda ayaan ugu dambeyn lagu soo xiray duco suldaanka iyo ugaaska faataxa la saaro horta faataxa la akhriyo ilaahay inuu xilka u fududeeyo mas-uuliyadda ilaahay u fududeeyo xilkii qaan ilaahay u fududeeyo wixii bini xasan oo Soomaali dhibka Allah ka qaado dadka xiran xariga Allah ka furo wixii dhib qabo caafimaad laan caafimaad Allah siiyo wixii xanuunsan caafimaad degdeg Allah siiyo marka xaajiga laba suldaankii ugaaska faataxa la saaro